waxaan ku suganahay gurigii martida ee 1991 Soomaaliland lagaga dhawaaqay farxad bay aniga gaar ay tahay dareen gooni ay muujinaysaa laakiin waxaan aad uga xumahay oo aan uga xumahay in gurigii sida aragtaan uu eegyahay iyadoo dalka ay qabsadeen mujaahidiintii dalka u soo halgamay waxaan u malaynayaa inaanay runka ahayn inay dalkan iyo dadkan waxay u qabsadeen inay hay'ad aad ka ridid waayo waxaan arki jirnay nin markuu dalka qabsado dalkiisa wixii uu ka soo dagaalamay ka ilaaliya oo ka horumariya deyrkaas oo waliba isnaan dhamaystirnayn ayaa ku wareegsan gurigii weydiga arkay caan ku weegyahay lacagta 18 May lagu bixiyaa kharashka 18 May aynu ku burburino hudheelka cuntada laga cunayo kaliya ayaa dhis lahaa ayaa guriga dhis lahaa ee dad lagu naasnuujinayo shaaha madaxtooyada cabdo kaliya ku filan hadii la isla guriga ku dhisa war waxaan leeyahay taariikhdu way isqoraysaa nin waliba 5 sano joogay oo ka tagay laakiin qofku inuu xantiisa wanaajista fiican iyo aakhiradiisaba waxaan ugu baaqayaa in guriga degdeg loo dhiso degdeg in loo dhiso oo waliba xukuumaddu dhisto burco dhammaan way ka aradan tahay baahiyihii dawladnimo madaxweynuhu ma aha intuu yimaado inuu ka noqdo uma waxa la taaban kala rabaa in laga qabto garoonkii diyaaradahan soo eegay sayladii baan soo eegay meel waxaan ku oray loo kaadi taga malaha saylada xoolo waa nasiib darro weey marka waxaan ugu baaqaynaa annagoo dalkan iyo dadkan bal xijeclo kale oo aan aaminsanay hadii dalka Faysal Cali Waraab uu qabsan lahaa inaynu barwaaqo gaari lahayn sababta ay ku harayna ay ahayd qabyaalad waa markiisii aynu keena meesha hadii doonayeen dalkan iyo dadkan aynu barwaaqo gaadhno political programkii xisbiga kulmiye ama platformkii xisbiga kulmiye ilaa imika wax ka hirgelay ma jiro waxaan ugu baaqaynaa waan leenahay burco way ka aradan tahay baahiyii dawladnimo ee xukuumaddu wasaaradeeda ha soo rarto isu duwayaasheedu ha shaqeeyaan